madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland shirgudoonka labada gole gudoomiyaha maxkamadda sare golaha wasiirada golayaasha qaranka guurtida iyo baarlamaanka gudoomiyaha xisbiga wadani taliyayaasha ciidamada dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan aad uga mahad celinayaa anigoo si guud ugu hadlaya afka saddexda gole kulanka qadada oo inoo sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland saad la socotaan madaxweynuhu kulankan oo kale inuu dhici doono horu inoogu sheegay mar hore way dhacday golayaasha oo gaargaara golaha xukuumadda golaha guurtida golaha baarlamaanka markaas oo xilligaas oo inoo sheegay madaxweynuhu insha Allah inay iman doonto saddexda golo oo isku dhan in madaxweynuhu la qadeyn doono oo uu qada ku maamuusi doono aad iyo aad baan madaxweyne kaaga mahad celinaynaa kulley wayska sunnaha dawladnimo wiigan hadda ina dhaafay waxaan iskaga jiray farxad iyo ictiraaf wadanka u soo hoyatay guul u soo hoyatay kama madna maadaama madaxweynuhu uu la kulmay hay'adaha qaranka oo dhan hadday xisbiya tahay hadday arrimaha bulshada tahay hadday culimada tahay hadday aqoonyahanka tahay marka waxaan filayaa waxa weeyaan maanta mar hadduu ay isugu yeedhay saddexdii gole oo qada ku maamuusay madaxweynuhu aad iyo aad ugu mahadsan yahay sideedabana madaxweynuhu dawlad la socotaan waa madaxweyne ab furan oo jecel had iyo jeeraale midnimada iyo wada socodka iyo isku hagaajinta qaranka marka waxaan filayaa in sidaa loola socdo oo lagula shaqeeyo qarankuna meel wada jeensto ictiraafka iyo guushaana la wada difaacdo wixii dambe soo kordhana insha Allah loo toogahayo oo iyana sidaas oo kale loo soo dhaweeyo